dowladda Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta xiray inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoo ay xanibeen isku socodka dadka iyo gaadiidka waxaana xiritaanka wadooyinku ay ku soo beegmayaan xilli lagu wado berrito leh in golaha shacabka lagu qabto ama uu ka dhaco shir ay isugu imaanayaan xildhibaanada Soomaaliya warkan waxaa noo faahfaahinaya Farxaan Maxamed Xuseen tan iyo markii uu soo bilowday mooshinkii laga keenay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Professor Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari kaas oo dhaliyay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka ayaa waxaa joogto noqday xirnaanshaha wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho gelinkii dambe maanta ayaa waxaa la xiray qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho waxaana ka mid ah wadada warshadaha iyo inaan loo soo gudbi karin wadada Makaal Mukarrama taas oo dadka shacabka ku noqotay dhibaato xooggan dadka shacabka ah ayaa galabta ku lugaynaya hareeraha wadooyinka xiran kuwaas oo kala jeeda meelo fog oo ka mid ah magaalada Muqdisho shalay ayay ahayd markii la furayay wadooyinka magaalada Muqdisho maantana gelinkii dambe waxay noqdeen kuwa xiran shacabka ku nool magaalada Muqdisho iyagoo markii hore joogto u ahayd dilal iyo qaraxyo ayaa haddana waxaa joogto u sii noqday xirnaanshaha wadooyinka ayaa waxay imaanaysaa xilli maanta la iclaamiyay in maalinta berrito uu jiro kulan ay yeelanayaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya